aada iyo aada baan ugu faraxsanahay maantii inaan joogno oon dhammaystirayno qeybtii labaad ee shirkii heritage ee kasoo bilowday bishii December dalka Djibouti inaan maanta labadan casho oo maanta ka bilaabanaysa uu noo soo gabagaboobayo cilada dhacdana waa la sheegay walaasheena Allah u naxariisto runtii wada jooga dadka Soomaaliyeed ay wada joogaan ayaa muujinaysa waxa la isku yahay dadaan farqina u dhaxayn xag luqad haday noqoto midab haday noqoto dhalasho haday noqoto dhammaan waa hal dad baan wada nahay waxa ujeedada uu hadda mursal agaasimaha macadka heritage uu sheegayna madashani waa madasha ugu weyn oo dadka Soomaaliyeed kulmisa sanadkiiba mar ayaa la is arkaa humuumta jirta iyo wixii mowduuc taagan lagu soo bandhigaa sanadkan si gaar ah waxaan bogaadinaynaa in loo doortay mowduuca kobcinta dhaqanka nabadda geeska oo loola jeedo anuu hadda ka hor waa aan jaamacad dhiganayay ayaa la geeska la sheegay oo dhanba waa inta Soomaalidu degto laakiin dowladaha ay ka tirsan yihiin oo Ethiopia iyo Kenya iyo waa saasi ugu soo biireen ayaguna laakiin geeska Afrika inta Soomaalidu degto ayay tahay marka kobcintaas oo loola jeedo Soomaalida iyo dowladaha dariska ah intaba runtii sanadkan waan soo fiicnayn ninbaa wuxuu yiri wiilwaal la yiraahdo sacanaas adaga iyo weedha maxaa kulmiyay markii shirkii Djibouti aan tagnay bishii December aakhirkeedii 27-28 oo saddex madaxweyne oo hogaamiyaasha Soomaaliya kamid ah ay isugu tageen oo anigu kamid ahaa runtii heshiis taariikhi la gaaray oo meeshaas heshiiska aad aragteen la saxiixay muddo kooban lagu saxiixay wax dareen oo weyn oo jiraan aysan jirin annagoo dhan aan tafaa'ulaynay niyad sami lagu soo kala tagay lalahaa bishan labaad ee dhamaatay baa la isku soo laabanayaa si arrimaha masiiriga looga hadlo runtii waxaa ka dambeeyay arrin cajiib laha ka dambeysay taasina sida hadda agaasimaha mursal uu sheegay sababta ugu weyn waxaa weeye dad Soomaaliyeed oo isku tagay dad baa dib u arkaya ama dowladda dib u arkaya hadday heshiiyaan oo mustaqbalkooda isku dayaan inay ka heshiiyaan iyadana way ka sii darnaanaysaa yani degdegta iyo offeriska iyo waxa la bixiyay isla markiiba wax khatar oo aad aan u qorsheysnayn ilaa haddana jahwareerka weyn geeska Afrika jahwareer weyn ka dhalisay dareen xoogan iyo kacdoon dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba dareen gelisay ay ka dhalatay arrintaasi waa arrintii Ethiopia hoggaankeedu ay doorteen inay dhammaan curfigii dawliga ahaa iyo dhaqankii weynaa inta meel la iska dhigo in dal la yiraahdo qayb ka mid ah la qaadanaya runtii arrintaasi dadka Soomaaliyeed waan runtii Yuusuf Xasan iyo wasiirka iyo Soomaalidu meel ay joogtaba Soomaalida jigjiga joogta ayaa ugu horeysay dadka u horeeyay oo ka dhidhiyay maalinkii Musabix la yiraahdo lagu soo dhaweeyay meesha heesii samanka lagu soo dhaweeyay waan arkaynay Somaliland gudaheeda lafteeda Hargeysa iyo Burco iyo Boorame iyo Lughaye iyo Zaylac iyo dadka Soomaaliyeed way ka dhidhiyeen arrintaas marka factor midaysan oo na mideeyay oo na ilowsiyay waxyaalo badan oo dadka Soomaaliyeed kala tabanayeen marka runtii fursad fiican baan haysanaa waxaan joognaa caalam uusan qofka maskiinka ah aan loo naxariisanayn hadda sida muuqata ma sanadba sanad ka dambeeyay marka dadka Soomaaliyeed in la isku keeno oo afkaartooda mideeyaan oo vision guud wada yeeshaan ayagoo dowladahooda ka wada tirsan runtii aad baan u soo dhaweynaynaa
dalka Djibouti oo walaalahan nahay na dowrka de Soomaalinimada markii nabad la yiraahdo Soomaaliya anaga si gaar ah nabad markii la yiraahdo de waxaan soo xasuusanaynaa 2000 iyo ka horba muxaawalaadkii isku dayadii kale ee ka horeeyay sagaashamaadkii socday laakiin tii 2000 baa mid dhashay oo runtii si weyn raadka iyo dawladda haddana haysano saldhig u ahaa marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dawladda Djibouti mar walbana waa Soomaalidu meel isugu timaadaba waa la sheegaa sidaas si la mid ah walaalaha Kenya jooga oo runtii aan maalin dhaweeyta arkaynay wasiirkii gaashaandhigga iyo de meelaha ay gaareen iyo taliyihii nabad sugidda iyo meelo badan oo xasaasi ah waaweyn ayadana safe ayaan halkaas ka nahayo dadkaasi mar walbaba miiska qadiyadda marka la saaro waxaan ku leenahay dad waaweyn baa ku leenahay garaba marka iyadana waan ka mahadcelinaynaa waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo koobo nabaddu waa asaaska wada noolaanshaha madaniga ah waa tiirka dhammaan qaybaha kale ee nolosha ay ku taagan yihiin sida dhaqaalaha dhaqanka iyo diintuba oo waan aragnay dadkeenan hadda Muqdisho jooga inkastoo Muqdisho hadda ay aad u soo fiicnaatay oo nimankii maaragtay khawaarijtan u bixinay waagi hore al-shabaab baa la jiro al-shabaabku waxay noqdeen ciidankeena dhalinyaradii noqotay fiicnayd oo dalkooda xoreynaysay dhalinyaradeenii baa jaamacadaha kuwa aada aan magacaas u reebnay laakiin iyaga waxaa la siiyay khawaarij baa la siiyay waxay dhaqankii bay ka baxeen dawladnimadii bay ka baxeen daacadii dawladnimaday banaanka ka istaageen culimadeenaana ku tilmaantay marka tusaalooyin badan oo waxaa jirta Soomaalidu nabadda ka tiri rag gogashii waa nabad waxaa ka mid ah inta nabadii jirto ninba laba nin ayuu leegyahay ninkiiba laba nin waaye marka nabaddu jirto marka waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado in dadka Soomaaliyeed oo runtii Ilaahay ku manaystay midnimo dhinac kasta leh ay ka midaysan yihiin wax badan oo dadyowga adduunku ay tabaan inaan arrintaas la xoojiyo oo macadka heritage aan maaragtay rabnaa inaan lagu garab siiyo oo aan dhibaato loo arag sanad walba marka la joogo heritage amaana way u soo hoyataa oo dadkii Soomaaliyeed bay gogol u fidiyeen dadkii Soomaaliyeedna gogoshaas ma wada deeqdo dad baa la soo xulayaa kooban marka inaan garab siino annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta ayaa magaceena ku jira dib u heshiisiinta waxaan dejinay istiraatiijiyad iyo qorshayaal qoto dheer oo wax lagaga qabanayo xalinta khilaafyada iyo heshiisiinta noocyadeeda kala duwan waxaa ugu weyn hanaanan hadda soo dhammaystirnay oo la yiraahdo hanaanka dhab u heshiisiinta qaran ee ka hortagga iyo xalinta khilaafyada wuu soo dhammaaday luqadda carabiga iyo luqadda Soomaaliga iyo English uu ku qoran yahay waxaan loonji garaynaynaa ramadaanka marka laga baxo wada tashi ururada bulshada culimada iyo dhammaan waa lala yeeshay iyo dowlad goboleedyadaba hanaankaas 6 tiir buu ka kooban yahay wuxuuna koobayaa dhammaan talaabooyinka la qaadayo waxaana ku lifaaqan oo iyadan la diyaariyay qorshaha fulinta hanaanka dhab u heshiisiinta qaran oo ka kooban in ku dhow 200 oo talaabo ama howlood oo lagu hirgelinayo hanaankaas isaguna waa ku lifaaqan yahay dhammaan hay'adaha ka shaqeeya ama cid kastoo nabadda ka shaqeysa waxaan lagu kormeerayaa inay qayb ka mid ah hanaankaas ay qaadato oo wasaaraduna kormeerka ay ku yeelato wasaaraduna qayb ka mid ah ayay qaadan doontaa waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado inaan u mahadceliyo macadka heritage oo shaqadan wanaagsan inoo haya waxaan rajaynaynaa in labadan casho guul uu noogu soo dhamaado walaalaheen nala joogana inay gacmo furan ku soo dhawaadaan sida wasiir muumin uu sheegay minankoodii waaye magaaladana waan ku soo wareejinaynaa bal Muqdisho iyo say noqotay Muqdishada cusub insha Allah labada casho aad joogtaan iyo ka badanba haddaan noo sii joogtaan waan soo wareejinaynaa
aad baa koboc xoogan u socdaa. waxaa la jiray dhammaan wixii lacagihii ay aruursan jireen khawaarijtu oo dadka ay ku baadi jireen baa la jaray. dadkii marka waxoodii way maalgashadeen, magaaladoodii bay maalgashadeen. markii laga jaray inaan lacag xoog looga qaadin oo baad looga qaadin, waayo baad xoogan baa laga qaadi jiray oo 150 milyan ayay sanadkii usoo xaroon jirtay sida la qiyaasay kooxaha khawaarijta oo inteeda badanna dhulkan laga qaadi jiray. waxaase hadda dadkii u baaqdeen, dadkii waxooday maalgashadaan, magaalo nabada. weli khatartii inta meel ka mida Soomaaliya ay joogaan, khatartii wayna dul joogtaa, laakiin shaqooyin fiican baa socdo. hadda daraad baa u dambeysay in kooxahaas qaybo badan oo ka mid ah lagu qabtay ayagoo nool Jubbaland, Kismaayo agteeda, Sanguuni, inta dagaal lala galay ayagoo indhaha laga xiray oo saas loo hogaaminayo. sidaas gobolada dhexena uga socdaan, South West ay uga socdaan, meel kastaba operation xoogan ayaa socda oo aan rajeynayno inuu soo afjiro colaadii u dambeysay. insha allahu aan rajeynayno inay Soomaaliya wixii ka dambeeyay markaas ay dhinac isku raaci doonto. aad iyo aad baa umahadsantiin.